halka ku qoran marka hore fiirinaya userska computerka aan isticmaalayo net users aan la kadib hal enter waxaan halkan aragnaa userska loo bixin oo administrator in passwordka aan ku bedelno kadib waxaan leeyahay net is user Ibrahim waxaa muhiim in magacu siduu yahay userka loo qoro aadan waxba ka bedelin kii capital kii small and small kadib waxaan qoriyaa xidig net user Ibrahim space xidig kadib waxaan leeyahay enter wuxuu leeyahay geli passwordka cusub ee hadda aad gelinayso oo ka hor aad ku bedelaysid waxaan gelinayaa 1122 kadib enter 1122 kadib enter waan ku guulaysanay bal aan tijaabiyo oo loo geliyo waxaan isla qabayaa Windows +L waxaan kaga saaray passwordka cusub oo 1122 hadda waan ku guulaysanay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan fadlan haddii aad ka heshay casharkan ha ilaawin inaad subscribe tiraahdo YouTube channelkeena si aad u hesho casharo walba oo aan markaas soo dhigo